Doctors waa ay 40 jirsatay waa warshad soo saarta alaabada guryaha sida jiifka, armaajooyinka, kuraasta fadhiga iyo kuwa qadada. waliba waxa intaas ku dheer in carruurta qolkooda lagaaga dhigayo mid ay aad u jeclaystaan. Doctors ayaa waxa ay sameysay qiimo dhimis 40% iyadoo aan wax faa'iido ah laga qaadayn marka aad qarashka u bixinayso bilbil. dhammaan alaabada aad ka iibsata Doctors waxa ay ku imaanaysaa 7 sano oo damaan ah iyadoo keenista iyo xirxiridda alaabadu ay tahay mid aan wax qarash ah laga qaadayn. haddaba carwooyinka aad ka heli karto alaabada Doctors waxa ay ku kala yaalaan Haringey iyo Edmonton ee magaalada London. ciwaanka iyo taleefanada waxaad si saani ah uga dheehan kartaa shaashada. waliba waa dhag laakiin timahaygu way go'ayaan mana baxayaan sida ha oran halka wad heli karaysaa isticmaal looshanka cusub ee Dark and Lovely ee Well Masters timahaygu markii hore markaan mar feere way go'ayaan laakiin hadda 10 jeerna ma go'ayaan 10 jeerna dibkaygu wuxuu ahaa timahayga laakiin hadda xalayaan helay ee adiguna isticmaaltan fiiri cidda tibid hadda uma baahni timihii beenta ahaa dawooyinka cusub ee Dark and Lovely waxay ka hortagaan go'itaanka timaha Dark and Lovely haddaba wixii faahfaahin dheeraada ee daawada Borodima LLC kala xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda. Telesom Company tobanaan sannadood lama tiigsan karaayo. shirkadda Telesom ayaa macaamiisheeda ugu bashaaranaysa inay hore u marisay adeegyada internet service-ka. waxaad ka helaysaa internet xawaarihiisu sarreeyo oo dunida oo dhan aad kula xiriiri karto. adeegso hanaanka ADSL oo ah mid xarig ama wire leh. 3G service adeegan waxaad u isticmaali karaysaa live streaming daawasho iyo maqalba leh. social media oo wararka iyo arrimaha bulshada aad kula socon karto. website-yada xiriirka chatting-ka ee folka iyo waliba faster downloads aad kula soo wareegi karayso macluumaadka aad jeceshahay oo dhan oo xagga internetka. haddaba isticmaal goor kasta iyo goob kastaba Telesom Internet Service. ودقيق لا يسكر راعي هموغان ددوينو haddaba kala xiriira warshada daqiiqda ee Nasma telefoonada kala ah 22 5 30 63 ama telefoonka gacanta ee 77 286 aqoon la'aan waa iftiin la'aan ma ogtiin mas'ala socotiin bulshada in la idin furay xarunta waxbarashada Choice Tutors oo laga furay Brixton ee koonfur galbeed ee magaalada London waxa wax ka dhigaya maamulo iyo macallimiin ku dhashay waxna ku bartay heer jaamacadeedna uga baxay wadankan aadna u yaqaan qaabka waxbarasho ee wadankan manhajka ay dhigayaan uu yahay manhajka wadankan Britain ardada waxa la barayaa GCSE da ilaa baliska ilaa jaamacadda iyadoo laga caawinayo markay jaamacadda galiyaan maadada ay dooranayaan iyo waliba personal statement-iga jaamacadda markay ka baxaana qoraalka essayada si aad looga taageerayo ardada jaamacadaha markay ka baxaan haday shaqo waayaan shaqo ayay la baadi goobayaan oo qaabka ay u raadinayaan xogta ayay islaafsanayaan waalidiinta markasta iyo waqti kastaba maamulka sarena dad Soomaaliyeed ayaa ka tirsan meel kasto aad joogtaan bulshooyin la moogaan inaad la xiriirtaan Choice Tutors wixii faahfaahina shaashada ka daawada Indodero Group of Companies
shirkadda Indodoro waxa ay ka kooban tahay qaybaha soo dejinta raashinka badeecadaha iyo shidaalka import and export laamaha shirkaddan waxay ku yaalaan magaalooyinka Hargeysa Burco Berbera Wajale iyo Dirdaba waxay ku diyaarisay warshadda wax soo saarka saabuunta gaar ahaan Tayda Asma Star iyo Alisa oo tayadooda aad u sareyso kala kooban 50 gram 80 gram iyo 100 gram maxtarka wadaniga ah Indodoro oo aad ka helayso dhaqaatiir aqoon u leh xanaaninta naaxinta iyo caafimaadka xoolaha oo ajaanib iyo muwaadiniin ba isugu jira sidoo kale shirkaddu waxay ku diyaarisay Indodoro Real Estate oo ka helayso adeegga casriga ah ee Indodoro Mall oo ah kii ugu horeeyay noociisa ee Soomaaliland laga furo oo adeegyo kala duwan ku fududaya waxa kale oo aad ka helayso shirkaddu ay ku diyaarisay hoteelo hurdo iyo dhismayaal kala duwan oo loogu talagalay hay'adaha shirkadaha iyo qoysaska hamogaanin Indodoro Group of Companies wixii faahfaahin ka eeg shaashada hortaada Sinai Star Hotel and Restaurant سلامات من كل آفات سرائي هوس بوئك وكسيتا كوا كالي فافستا ويه هيركيسا او صدر موغدا ليري سؤال كدن هسهاشان وركيغان إلا سعو كبغو سرير جوجل قرحونو ساني وقو قماديو سي قبوغي سحان سحل موديو انترنت كورد سلوغين حواريه سريو سو تي في عالم كيو سكن ولي بوحا سهل وقدا وطا قولك كو مسورا سيناي ستار هوتيل and restaurant masuurayn karee siduu yahay maqaaxida saa u jaleec cunno dhadhankeeda suulayn isugu jira sadumeeyo nooc fruit sixa iyo caafimaad leh cabitaano aadna ka sabrayn haseeginay hadda gaar Sinai Star Hotel and Restaurant ma ku hamiday inaad muuqatid dhismooyinka taariikhiga leh iyo goobaha lagu xanaaneeyo ugaadha Sinai Star Hotel and Restaurant oo ku yaala waddanka Kenya magaaladiisa Mombasa haddaba ka booking gareyso internetka amaba maad kala xiriidid ciwaanada shaashada kaaga muuqda ما تشخط ما يكونوا لي يا حاج حاد عودك ما في عناه شغلك كل ليل ما في عناه ما في عناه تضوي معاته ما في عناه بسم الله الرحمن الرحيم تضوي معاته الله محي يقول لعي هذا بو عنتده لا cuni laayahay ها صاحب محافظة جوجتا وأكوسا صعد صاحب وحبا يقول دعي مكاني من يسوق صاحبي وحبا يقول دعي مر القدر كستون قريبا كل يقول لا يدا فرض وحي قدد يا بكي ما يقدر ما هذا صاحب قدد جنبه ما قدرت جنبه ما بحي ما قرنا يا صاحب إنه مرواي ناسا وقدرة سيدكم معايا وديا بس معاك سيدكم وقدرة سمعت دام بري معانكيس معانا صاحب صرت وعدتك انتو ما تقولوا عجبسه انت لما ما قدرت جومبو جومبو سرتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلا إلى هندا أنا حافظة إذا أسعدا أيام وحن قال الشل وحن لحد كمبني جوين برسج وحقيقي كان بابور يجو أمر كان بابور كيجي قاضي وحنا إيسو دعيين حقيقي وحن ذكرت تلين لها إن الله حديدان كمبني جوين برسج يجو قام فرنج كسر دوينيا هاوشينا إذن دمستري برستيج waa shirkadda kaliya ee ku balan qaadaysa magdhowgaada boqolkiiba boqol horta waan ka helay xaqaygii intuu gaariga iga halaysnaana gaari cusub ay siiyeen haddaba kala xiriir taleefanada ka muuqda shaashadda iyadoo ay ku jawaabayaan dad ku hadla luqadaada hooyo duni wada barwaaqo ah waxaad u baahan doontaa dad xirfad yaqaan ah laguna dayan karo kuwa oo leh hirgelinta diiwaan taariikhiyeed mashaariic miradhal ah soona qabtay hawlahaas walina ku guda jira dadku caan baxay shaqo hufnaan iyo mid qiimo leh iyadoo aan la eegayn tirada shaqada ee la eegayo muhiimadsiinteeda iyo tayeynteeda dad fahmi kara xaaladda adiga ku gaarka ah ee aad ku sugan tahay diyaarna kuula ah inay ku gaarsiiyaan meelo fogfog si ay uga jiba keenaan aragtidaada waana taa sababta haddaynu nahay albushra aanan u arag oo keliya ganacsi laakiin aanu nahay shirkad u taagan horumarinta nolosha dadka ay xiriirka la leedahay
albushra waa shirkadda horumarinta guryaha iyo ganacsiga albushra waxay kuu hibeynaysaa runka dhigidda riyadaada albushra waa dad la aamini karo hormuud telecom waa isgaarsiin aad isku hadlayn karto GSM-ka hormuud waxaad ka helaysaa adeegyadii ugu dambeeyay caalamka sida dalmar service SMS iyo Google SMS landline-ka hormuud waxa aad ka heli kartaa adeega DSL-ka ee ximbaar ah internetka call waiting iyo weliba call conference 3G service waa adeeg internet oo speedkiisu sareeyo USB internet flash waa flashka ku qaada internetkaaga oo ku isticmaal halkaad rabto adigoo ka heli kara video call live stream iyo social network EVC Plus waa lacagtaada ku qaada mobilkaaga ku dukaamayso ku bixi biilasha sida biyaha korontada iskuulka iyo kirada guriga dalmar international roaming adeega wareega waa lambarkaaga hormuud ku isticmaal meel kasta oo aad adduunka ka joogto hormuud telecom waa isgaarsiinta ugu ballaaran Soomaaliya oo aad ka heli karto goob kasta aad joogto gobol degme iyo tuulo hormuud telecom waa haqabtiraha baahidaada isgaarsiineed haddaba wixii intaasi dheer kala xiriir hal eber hal ama hal warahmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan daawada lahaantiiba meel walba aad naga daawanaysaan halkaad xilligan si toos ah inooga daawanaysaan waa telefishinka caalamiga ee Universal Studio oo ku leeyahay bariga magaalada London ku soo dhawaada warkii caalamka anigoo Jamila Garuun ayaa u diyaara qodobadan wararkeeda kuga hayna waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa safarkiisii ugu horeeyay ugu ambabaxay dalalka aanu dariska nahay isla markaana ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland ayaa sheegtay inay wado qorshe ay uga saareyso maraakiibta shisheeye ee xaalufinta ba'an ku haya xeebaha Puntland dhaqaatiir u dhashay dalka Kenya isla markaana qalimo bilaa lacag ah ka sameyn doona magaalada Burco wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ee geysay magaalada Burco qaar kamid ah ganacsatada dekedda magaalada Muqdisho oo ka cabanaya canshuurihii dhawaan ay ku kordhisay dowladda federaalka Soomaaliya dekedda magaalada Muqdisho xubno kamid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo tacsi u diray Allah u naxariistay Cornel Xasan Nuur Maxamed Shaati Guduud oo ku geeriyooday dalka Jarmalka dalada ay ku mudaysan yihiin dhalinyarada qurba joogta ah ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo looga dhawaaqay dalka Sweden qodobadaas iyo qodobo kale oo ay kamid yihiin kuurada koonfureed iyo midda waqooyi ayaad ku maqli doontaan wararkeena balse qadar yar oo adeega bulshada shirkadda isgaarsiinta ee Nation League waxa ay ku soo kordhisay adeega lacagta mobilka ee loo yaqaano email ku kaydso lacagtaada oo kala bax xilligii aad doontaba kaga iibso dhammaan goobaha ganacsiga sida alaabooyinka shidaalka shopping iyo waliba khudaarta bill payment waa mid aad ku bixin karaysid biilashaada sida korontada biyaha fiiga waxbarashada ardayda iyo telefoonada Bulk payment waa hanaan ay shirkadaha iyo hay'aduhu ku bixin karayaan mushaaraadka iyo gudooyinka shaqaalooda meel kasta oo ay joogaanba ku shubo lacag ama ugu shub numberka airtime-ka prepaid-ka kaasi oo aad wax ka siinaysa saaxiibka ku xawilo oo ha lagu soo xawilo email lacag kala soco emailka haragaaga email waa xorriyad maaliyadeed amaana xawaalada amaana waa horyaalka xawaaladaha min Ras Kafoni ilaa iyo Ras Casayr New Zealand oo cirif ah iyo China oo cirif kala ah haday dadkaaga kala joogaan isla daqiiqadaad u dirta lacagta ayay horay ka helayaan amaanada ayay ku xeel dheer yihiin waa midaan u bognay xawaalada amaana online idina aad u bogi doontaan amaana online adeegeeda waa loo haye amaana online adeegeeda waa lagu abshir Hotel City
City Palace. City Palace Hotel. City Palace waa hotel caalami ah oo ka sareeya dhigiisu wax la siistaba la waayay. Waxaa ku dhex yaala hulal si gaar ah looga fikirayo dhismahooda. Tixgelin gaar ah la siiyo inuu suurtagali kara ilaa kumanaan dad markiiba inaan ku casuumno. waxaa yaala jiifaf saxiixa sax oo gabigood عندنا سلوك عن لهين سيتي بلاس هوتيل سيدا دونتو واد هلي ولا الهدف كاغا إناد صحيحة كدوكتو دنتا هذا كو سهلاناتو هكو صورة كجي سيحوا ايكا عنتي هوتيل سيتي بلاس لنا عمانكا وحالو استعمالي خلب عصري او سوغيا جبيغا قوبتو كويالو هلي كستبا بيفافين انتاسي كبادن كلا سعو نمبر هذا شاشة كو خور rugta caafimaadka Andrews Medical Center Nurses Home waa isbitaal ay u dhameystiran yihiin dhammaan adeegyada caafimaadka oo dhan waxaana ka howlgal dhaqaatiir ku hadlaysa afka Soomaaliga sida Dr. Xuseen Nuno oo ku takhasusay cudurrada caruurta Dr. Maxamed Xuseen Bodaye oo aqoon durugsan u leh daweynta cudurrada guud Dr. Cabdi Cabdulle oo ku takhasusay cudurrada faafa iyo Dr. Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay dayactirka ilkaha Ditoreso Qadra Cusmaan oo ku takhasusay cudurrada haweenka Dr. Abbas oo ku takhasusay qaliinka iyo daweynta indhaha Dr. محمد حسن سعيد oo ku takhasusay toobinka jirka iyo dhaqaatiir ajnabi oo qaabilsan qaliinka guud haraga wadnaha jabka lafaha dhimirka ama neerfaha rugta caafimaadka Andrews Medical Center waxay ka kooban tahay qayb bukaan jiif qayb bukaan socod dhalmada raajada shaybaarka kombiyuutarka oo lagu ogaado urku jirka sida wadnaha beerka iyo kaliyaha iyo qaybta jimicsiga oo ah physiotherapy iyo waliba farmasiya caalami ah oo aad ka helayso dawo tayadeedu sarreyso rugta caafimaadka Andrews Medical Center waxay ku taalaa xaafadda Islii gaar ahaan wadada Cham Street ka soo horjeedka masjidka Al Hidayah fadlan maanta ka wac telefoonada shaashada ka muuqda your health comes first مرواز اسبيشاليستي تخصصي isbitaalka takhasusaadka Marwaas ما شاء الله waxtarkii saad baa loogu maqsuuday dad badan oo muddo dheer madiin la sii dhutinayo meel kasta la geeyo cudurkooda maar loo heli waaya marliga ooga bogsooday wuxuu leeyahay qayb bukaan socod iyo bukaan jiif wuxuuna u kala baxay saddex qaybood oo kala ah cudurrada guud cudurrada caruurta qaliinka dhaawacyada culus iyo gabadha foosho ku dahda Allah u fududeeyay wuxuu leeyahay shay baar casri ah oo international standard ah waxaana lagu baaraa dhiigaga thyroidka xinjirowga sonkorta dhiigaga wadnaha iyo cudurrada faafa sida cagaarshowga HIV tifowga malaariyada iyo jadeecada qalabka uu ku howlgalo waa kuwa casri ah horey dalka aan loo keenin waxaana kamid ah CT scan ultrasound echocardiograph AGC X-ray raajo isbitaalka takhasusaadka Marwaas waxaa ka howlgal dhaqaatiir isugu jirta suuxdinta qaliinka burada bawaasiirka eernada iyo dhaawacyada halista ah iyo daaweynta cudurrada neerfaha dhimirka wadnaha beerka dhiigkarka iyo kaadamareenka Marwaas specialist takhasusi wuxuu shaqeeyaa 24 saac dhaqaatiirta ka howlgasha haween iyo maalin waa kuwa heegan u taagan oo u hiilinaya bukaanto isugu jira Soomaali iyo ajaanib wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho degmada Xamarweyne dhabarka dambe ee daarta Binkuweer wixii faahfaahintaas ka badan kala soco nambarada shaashada ku qoran warkii oo faahfaahsan ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa maanta safar ugu ambabaxay dalalka aanu dariska nahay isla markaana ciidamadu ay ka joogaan dalka Soomaaliya warbixinta warkan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Yuusuf Cali wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa maanta u ambabaxay dalalka ay ka mid yihiin Djibouti, Ethiopia, Uganda iyo Burundi waxaana safarkiisa ra'iisul wasaare Saacid ku helinayay wasiirada wasaaradaha gaashaandhigga arrimaha gudaha iyo amniga iyo waliba xubno ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo gaadiidka mudane Cabdillaahi Ciilmooge Xirsi ayaa warbaahinta uga waramay ujeedada socdaalka ra'iisul wasaare Saacid رئيس الوزراء
ziyaaranayaan 4 waddan oo ay ka mid tahay ugu horeyso dowladda walaalada Djibouti kadibna Ethiopia kadibna Uganda iyo Burundi arrinta ugu muhiimsan ama arrimaha ugu muhiimsan ra'iisul wasaaruhu kala hadlayo dowladahan aan jaarka nahay waxa weeye si adkaynta xiriirka siyaasadeed iskaashiga ciidameed laga hortagay nabadiidka iyo si adkaynta deris wanaagga walaalnimo aan la leenahay dowladaha deriska ee East Africa tan iyo intii loo magacaabay jegada ra'iisul wasaarenimo mudane Saacid waa socdaalkii ugu horeeyay uu dalka dibadiisa ugu baxo Cabdisaaq Yusuf Cali Universal TV Muqdisho wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland ayaa sheegtay inay wado qorshe ay maraakiibta shisheeye ee xaalufinta ku haya kheyraadka badda uga saareyso xeebaha Puntland warbixinta warkan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Maxamuud Saciid Madani shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimayaasha waaxaha kala duwan ee wasaaradda kalluumeysiga waxgarad iyo gudiyada iskaashatada kalluumeysatada ee degmooyinka Boosaaso Baargaal Bandarbayla Caluule iyo Xaafuun waxaana ujeedka shirkani uu ahaa sidii looga wada qayb qaadan lahaa abaabul xoog leh oo ay wasaaradda kalluumeysigu ku doonayso in xeebaha Puntland looga xakameeyo maraakiibta shisheeye ee jariifka ku haya xeebaha Puntland muddada shirkani uu socday oo ahayd 3 maalmood ayaa waxa si qoto dheer loogu lafaguray dhibaatooyinka ay kheyraadka badda Puntland ku hayaan maraakiibta shisheeye iyadoona sidoo kale la soo hadal qaaday dad u dhashay Puntland oo maraakiibta jariifka ku haya Puntland wakiilka ah qaar ka mid ah gudiyada iskaashatada ee degmooyinka dhaca xeebaha Puntland ayaa wasaaradda ka codsaday in arintani ay xil gooniye iska saarto maadaama ay saameyn xoog leh ku hayso dadka isticmaala kheyraadka xeebaha Puntland wasaaraddu waxa weeye waxaan og tahay waxyaalo badan cilaam ay ka soo saadhay December 2012 wasiirka iyo dhammaan ilaa heer madaxtooye bay gaadhay arrinka waana la og yahay hasaacate waan sugaynaa waxqabadkeedii aniga oo ah gudoomiyaha iskaashatada kalluumeysiga degmada Caluule kana hadlaaya dhibta jirta aanna ka hadlahayn degmo kaliya ka hadlaya degmooyinka Puntland ama xeebaha ama kalluumeysiga dhammaantood waxaa jirta dhib fara badan oo xaalifina oo waddanka ka dhacda nabadoon Abshir Dhagcas oo kamid ahaa waxgaradkii shirkani ka hadlay ayaa sheegay in haddii arintani wax laga qaban waayo ay dhalinyarada kalluumeysatada ah u horseedi doonto in ay ku dhaqaaqaan falal burcadbadeednimo laba burcad baa jira burcad waxay ahayd burcad dibadda wareegi jiray burcad kala soo baxday burcadda kale waxa ku soo baxday markii aragtay inaan burcad labaad la qabtay burcad labaad badda soo gashay Iran Yamaniyiin cid kasta way soo gashay wasiir ku-xigeenka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland mudane Muuse Geelle Yuusuf Faroole oo gunaanadka shirka hadlay ayaa sheegay in wixii hadda ka dameeya aan loo dulqaadan doonin dhibaatooyin loo geysto xeebaha Puntland waxaa laga wada hadlayay qaabkii loogu hawlgeli lahaa in dadkaas burcadaynaya iyo gaadiidkooda badda looga saari lahaa cidda wadata iyo qorshaha dadka soo dejiyay oo dad gaadiidkan badda soo geliyana iyagana talaabo looga qaadi lahaa Maxamed Madani TV-ga Universal magaalada Boosaaso xubno kamid ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tacsi u diray Allah u naxariistay geeridii ku timid Korneel Xasan Maxamed Nuur Shaati Guduud oo ku geeriyooday dalka Jarmalka warbixinta warkan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdi Cante qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe iyo xildhibaan Maxamed Ibraahim Xaabsade ayaa waxay ka tacsiyeen geeridii ku timid Allah u naxariistay Korneel Xasan Shaati Guduud oo ku geeriyooday waddanka Jarmalka إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت سوري مت وحيكون صار هاي جيري مرحوم حسن محمد نور شار جدود أورنتي ومد الصوماليات قيم بدن كفدي خاصة قبل هذا ما عرفتي شعبي قديروا الصوماليات قيمة أيضا سرين كفدي
يا تحسين فدين وجريز لها شيء إلهي نحريس هلكي قرابدي اسكودمدي يوم الصوماليين صبر جميل الله كسي runtii xasan maxamed nuur shaar gaduud waliba ayaalan qiimo badan dalkan Soomaaliya leh hilkii qaraabadii iyo asxaabta ku dhamadayna ilaahay sabr jamiila ku sii umada Soomaaliyeed guud ahaan sabr jamiila Allah ku sii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay nahris walaalkaan xasan maxamed nuur shaar gaduud ilaahay nahris dhamadii dadkul ummada mele كل نفس ذائقة الموت هيك وقت جاي للدير وسونه إلهي نعرفه ونون إلهي بعد من نفسنا حسن لن قالي وهاي لن إيه عزيز أنا قال لن أمة الصومالي دتيو قالي كوهاي أمة سكودالدي لما بيلنا قالي كوهاي أمة سكودالدي لما بيلنا إلهي صبر يسيمكسي صبر جميل الله يسيمكسي وسون الله نارس وانا عفينو اي وسون الله عفيه hortaanoon alla afiyo ilaahay nahris dhinaca kalena waxaa ka tacsiiyay maamulka gobolka iyo kan degmada ugu horeyn waxaa ka tacsiiyay gudoomiyaha gobolka Baay Dr. Cabdi Aadan Hoosow taariikh islam kasta oo Soomaaliyeed idad badan oo Soomaaliyeed hayne og waliisahay lan dulmadiid ee dhimada lan gardardiid ee dhimada lan haliyay ee dhimada lan taariikh leh dhimada lan dad badan dib ku saaraya dhimada laakiin adduunyo leh malka waaro lan kasi kasto feelay waqti sheego biladeer dhimada mayla iraana madoon dad badan ku dhimada intay gaarhaan aragday family shay usradis Soomaali weyn ilaahay samari iimaan ku sii sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Xasan Macalin Ibraahim Al-Turaabi Xasan Maxamed Nuur Shaadguud hogaamiyihii aarare wahay bulshada walahan qobday xasan ilaahay naxariisa shaqo badan ha qobday waxay lan oo soo reexdo habaradi madana muxuu ahay hadda waxay wasiirkii dawladda muxuu ahay wasiirkii maaliyadda ahay wasiirka beeraha maxay in badan aan qobday dalka dhaqaatiir u dhashay dalka Kenya isla markaana sameyn doono qaliimo bilaa lacag ah ayaa mas'uuliyiinta caafimaadka ee Soomaaliland waxa ay ka dejiyeen magaalada Burco Bashiir Ibraahim ayaa warkan Burco ka soo diray مسؤولينta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo kaashanaya dhaqaatiirta cusbitaalka Manhal Burco ayaa habeenkii xalay qabtay munaasabad ballaaran oo ay ku shaacinayaan bilowga qaliino bilaash ah oo ay sameynayaan koox dhaqaatiir Kenyan ah oo hadda ku sugan magaalada Burco xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweeyay dhaqaatiirtaasi qaliinada sameynaysa ayaa lagu qabtay hotel Dara ee magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland xildhibaano iyo maamulka gobolka Togdheer waxaana ugu horeyn sharaxay qaliinada kala duwan ee ay sameynayaan dhaqaatiirtaasi Dr. Cabdiraxmaan Axmed Raage oo ah maamulaha cusbitaalka Manhal Burco iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yaasiin hawshan waa free way oo dadka faruuran dadka markaa qanjaa laga qalayo dadka markaa sanka laga qalayo dadka waxa weeye kaliya laga qalayo kuwa xameetida laga qalayo waxaan u kacayo inaan faahfaahiyo arrimaha iyo jajabka waxa soo dhan in markaa dadku ay u soo diyaar garoobaan oo si markaa si free ah loo diiwaan geliyo oo 16 bisha May sanadkan aynu ku jirro bil iyo bar kadib ayaa hawshaasi dhici doonta marka dadweynuhu sidaan ay ula socdaan oo ay ku soo tala galaan qaliinkoodu waa free way wax lacag laga qaadaya ma jiraan marka waana Manhal Hospital Burco sidaan loola socdo fariintaas dadka gaadho ayaa jooga gidigayo waxaanu ku sheegaynaa dadweynaha reer Burco dadweynaha reer Somaliland dhinaca gobolada Soomaaliya sanaag iyo waxa la wixii gaari karayaba inay ka faa'iideystaan qaliinka bilaashka ah ee loo sameeyo haddii ilaahay ka dhigo bilaabmaya 16 bisha shanaad ee sanadkan bisha soo socota weeyaan wuxuu ka bilaabmaya cusbitaalka Manhal maanta bari laga bilaabo ilaa 16 bisha ay markaa soo socda waxa socon doona diiwaangelinta sidoo kale waxaa munaasabadan ka hadlay agaasimaha waaxda adeegyada ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan waxaanu tilmaamay in qaliinadan ay hore uga sameeyeen dhaqaatiirtani magaalada Hargeysa halkaas oo ay ku daaweeyeen dad tiro badan waxaanu sheegay in dhaqaatiirtani qaliinada ay sameynayaan ay tahay kuwa ku cusub dalkeena sidaas daraadeed loo baahan yahay in laga faa'iideysto gabagabadii waxa munaasabadaasi ka hadlay
gudoomiyaha gobolka togdheer axmed cumar xaaji cabdilaahi xamarji iyo mayor ku-xigeenka degmada burco maxamed xasan jaamac xoday waxaanay labada mas-uulba si isku mid u tilmaameen in bulshada gobolka togdheer iyo gobolada bariba looga baahan yahay inay ka soo qayb galaan qalliinkaasi bilaashka ah si ay uga faa'iidaystaan ayay yidhaahdeen dadkeenna u baahan qalliinada kala duwan waxaanay ka maamul ahaan iyagu ballan qaadeen in maalmaha qalliinkaasi socdo ay bulshada gobolka togdheer iyo gobolada bariba ay ugu baaqayaan inay ka soo faa'iidaystaan qalliinadaasi kala duwan ee bilaashka ah ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya canshuuraha ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku kordhiso alaabaha ka soo degaya dekedda magaalada muqdisho maxamed maxamuud timacade ayaa ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen ganacsatada kadib markii dhawaan wareegto ka soo baxday xukuumadda federaalka dalka Soomaaliya lagu kordhiyay canshuur dekedda weyn ee magaalada muqdisho gaadiidka iyo sidoo kale waxyaabaha ganacsiga ee ka soo dega ayaa qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka cabanayaan tariifadii ka soo baxday xukuumadda isla markaana ku aadaneed canshuur kordhintii oo 100% lagu kordhiyay canshuuraha dekedda magaalada muqdisho ganacsatada oo ka cabanaya canshuuraha si la kordhiyay ayaa waxa ay ka codsadeen madaxda dawladda gaar ahaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka in dib u eegis lagu sameeyo tariifadaasi ka soo baxday dawladda waa kuwan qaar ka mid ah ganacsadaasi oo ka codsanaya dawladda Soomaaliya in dib u eegis lagu sameeyo canshuur kordhintii lagu sameeyay dekedda waa shacabka ma xamili karaan tariifada zaa'idka annagana ay ka warqabna jeebkooda maxaa yeelay muddo la soo ganacsanayna waxay kari karaan iyo waxay sakari karin waa naqaanaa war shacabka sidaan ma awoodo tan labaad ganacsatada waxay la tartamaan suuqyada caalamka kula tartamaan ganacsatada kale gobolada waxa la tartamaa kuwa Soomaaliland kuwa Puntland kuwa Jubbaland Nisha Kismaayo kuwa Nisha wadanku aeroboorka kala duwan uu leeyahay dekedana uu leeyahay ganacsiga aan qabanin marka tariifada aan saarnayn bari iyo midda aan saarnayn barbara taanaga neeysan fuuleen waxayna u gudbay hawshu ninka ugu yar oo gaar gacanka wada iyo ninka ugu taajirsan waa bahal gaaraysa way maasha cashuurta zaydka sababtu waxa waaye awala qaat bilaa taagnay dadka dhibaataysan ahaayeen haday doolarkii oo dhacay hadii muxuu ahay ku gabto muxuu ahay sheeg 10 kun oo bariga soo ninka gaar gacanka wada ama islaanta xamaal dhawr ku xamaalaysa 10 kun hadii uu geeyo sheeg 10 kun kiilada ay noqoto insha Allah 9 kun ay joogto kiilo bariis barigana sheeg 10 ay noqoto suuragal ma aha walaalayaal waxaan codsanaynaa dawladda ku meelgaarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa arintaas waa arin xanuun leh waa arin u abuuraysa ganacsatada gobolka Banaadir kalsooni xumo ku abuuraysa kalsoonina la galshaan rabnay kalsooni xumo ayaa nagu abuuraya inkastoo ganacsatadan ay cabanayso ayaa sidoo kale mudooyinkii la soo dhaafay waxaa jira cabashooyin kala duwan oo iyaguna ka soo yeerayay bulshada rayidka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho maxamed maxamuud timacade Universal TV muqdisho magaalada Jigjigana waxaa munaasabad heer sare ah loogu sameeyay ciidamo ka soo baxay dugsiga tababarka ciidamada ee magaalada Jigjiga Axmed Kaabo ayaa ka qayb galay xaflad qalinjibin ah ayaa ka dhacday xarunta dugsiga tababarka ciidamada gaarka ah ee Liu Booliska ee Shihalqamaha Soofe ee magaalada Jigjiga xafladan oo si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxaana kamid ahaa Hidaad Commissioner Cabdi Aadan Waris Hidaad Commissioner Cabdiraxmaan Cabdullaahi Buraale waxaana xafladan lagu soo bandhigay heeso lagu dhiirigelinayay ciidamada gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxaana soo bandhigay fanaaniinta deegaanka Soomaalida Itoobiya Liu Bolis kama lumin la shahadulkeeniyo waxay laabta ku hayeen mana liici doonaa rajmintigana waa rajmintigii 9-aad ayaa waxa socod gaadka ciyaar ah ay ku soo mareen xarunta dugsigan gaarka ah ee magaalada Jigjiga halkaas oo ka dhacaysay xafladan loo sameeyay xafladan qalinjibinta ah ayaa ciidamadan gaarka ah waxa ay ku soo bandhigeen tababaradii kala duwan ay ku qaateen intay ku xareysnaayeen xarunta dugsigan tababarka ee Shihalqamaha Soofe ee magaalada Jigjiga taasoo aad u soo jiidatay dhammaan ka qaybgalayaasha xafladan cirka oo daruuriyo daruur soo hilaacdo lagu doogsadanahay
rajbintigan 29aad ayaa waxa ay ku biiri doonaan ciidamada nabadgelyada iyo horumarka ee gaarka ah ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ka howlgala dhammaan gobolada degmooyinka magaalooyinka iyo tuuliyaasha hoos yimaada deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dhinacyada nabadgelyada iyo horumarka ka jira deegaanka Soomaalida Itoobiya Ahmed Kaabe telefishinka caalamiga ah Universal xarunta tababarka ciidamada gaarka ah ee Shihalqamaad Soofe Jigjiga wali waxaan ku guda jirnaa wararka inooga imaanaya dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dalada ay ku midaysan yihiin dhalinyarada qurbo joogta ee ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu qabtay ama lagu dhisay dhidibada lagu aasay wadanka Sweden Maxamed Amiin Sheekh ayaa warbixinta warkan ka soo diray wadanka Sweden shirkadii taariikhiga ah ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada Soomaalida Itoobiya ee ku nool wadankan Sweden ayaa lagu qabtay magaalada Västerås ee gobolka Västmanland ee dalkan Sweden waxaana halka lagu yagleelay Somali Ethiopian Diaspora Youth Organization oo ah dalada ay ku midoobeen qurbo joogta dhalinyarada Soomaalida Itoobiya oo magaceeda lagu soo gaabiyo Sadio ururkan loo xil saartay ee guddiga waxay ka shaqeyn doonaan markaas sidii lagu gudbo xogayaha dalada Sadio Xaye Maxamuud Cabdi ahna gudoomiyaha jaaliyada degmada Västerås oo shirka martigelisay ayaa ka hadlay muhiimadda iyo ujeedada shirka marka anagu Sweden Sadio hadaan nahay waxaan ugu talagalay in ay noqdo urur dhalinyaro oo ay ku midaysan yihiin dhammaan jaaliyada dhalinyarada ee Sweden maamulkan ku meel gaarka wuxuu jiri doonaa muddo 6 bilood kaas oo ka shaqeyn doona isku xidhka iyo isku keenida iyo mideynta fikradaha guud ee dhalinyarada muddada uu jiro wuxuu u gogol xaari doonaa shirweyne loo dhan yahay oo dhalinyaradu ay doortaan ay ka tashigooda iyo danahooda guud Cabdikariin Sheekh Umar gudoomiyihii gobolka Qorraxay oo kamid ah golaha fulinta dalada Sadio ayaa hadalkiisa waxa kamid ahaa in aynu isugu nimaadno munaasabadan aynu u fadhino ee asaasida ururka dhalinyarada ee ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya wajiyaal iyo dad khabiir ah iyo culimo iyo dhalinyaro aqoon-yahana inay horteena fadhiyaan oo asaaskii ugu horeeyay oo seen u dhaco aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Cabdirashiid Colaad wuxuu kamid yahay cuqaasha ama waxgaradka Soomaaliyeed wuxuuna hambaliyeeyay didaalka iyo midnimada dhalinyarada dalabkoodii oon ajiibno aan soo jeediyo oo ah 100% waxaan idinku garab istaagaynaa waxaad naga dalbateen Soomaalidu waxay tiraa waxa la yiri khalad ka dabagee haday qaalib ku noqoto oo khaladadaadii badnaa khalad ku taageerto qalooc aan la sixin bay dhashaa kaana qaraweyn khaladada jiray waxa weeye war ma jiro war maanta waxaan soo waday waad wada xilligaagii baad gaarsiisay waxa fiican hadana dhalinta maanta joogtay inaad tiraahdo kow socda walaalaya socda aabo dhaqaaqa qabta balanteen waa midnimo iskaashi walaalnimo wada socod iyo hore socod guuleysta horeyno socda gabagabadii kulanka waxa ka hadlay gudoomiyaha dalada Sadio Sweden Maxamed Sheekh Xasan Maxamuud oo loo yaqaano Uways ururkan baahi fara badan baa kulli loo qabay baahida loo qabay waxay tahay maanta dhalinyar baa bulshada hagta dhalinyar baa wax sameeysa dhalinyar baana wax xumaysa haddaan dhalinyarta la garab istaagin on dabada laga soo hagaajin wax ma suurtagaliyaan anigu hal cusub baan jeedinayaa hawshan hadda bilaamatay yeena noqon hawshii lagaga tagay halka ee han noqoto hawshii idinka laftiinu aad dabada aad ka wadaan meel kasta gobolada aad ka timaadeen inaad ka dhiirigelisaan dhalinyarta oo ina noqon dhalinyarta deegaanka soo jeeda dhalinyar qabiil ah oo noqoto dhalinyar deegaanka ka midaysan oo deegaankoodu hal mid yahay oo isku mid ah oo wax wada qabsanaysa maanta waxa la joogaa maalintii aynu fakari lahayn maalintii aynu ismidaysan lahayn maalintii aynu wada hadal ismaqal is ixtiraam iyo isu soo jiidasho isu soo dhaweyn aynu ku meel mari lahayn oo aynu meel ku gaari lahayn waxaan ahay xubin ka mid ah guddiga dhalinyarada ee Sadio Sweden waxaan u qaabilsanahay xiriirka gudaha gobolka aan ka imaanay
Västra Götaland, especially caasimadda labaad ee Sweden, Gothenburg ama Göteborg. aad baan ugu faraxsanahay runtii in barnaamijkeeni uu weynaado oo Sweden oo dhan u gaaro. waxaan u rajeynayaa guddiga cusub in ay sii gaarsiiyaan insha Allah Scandinavian-ka oo dhan. waad u jeedaan dhalinyaro faa'iidadeed wixii aan soo helay SYL iyo waxaan isku soo aragnay iska daayay waxa maanta kilinka sanad ka jira dhalinyaro ayaa waxaysa wali kuma aragnin odayo ka hadlaya waxa uu ku guuleystay in uu ka qayb qaato dhisidda ururweynaha Sadio maanta halkan u fadhino dhammaan Sweden. محمد أمين شيخ عبد الله يونيفرسال تي في ستوكهولم. mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer oo maanta shir jaraa'id ku yeeshay xaruntooda ayaa sheegay in xulka ciyaaraha ee gobolka Togdheer aanu ka qayb gelin ciyaaraha gobolada Somaliland. Ali Daahir Maxamed Boos ayaa warbixinta warkan inoo soo diray. mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska gobolka Togdheer ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaraddaasi ee gobolka Togdheer. nuxurka shirkan jaraa'id ayaa ahaa mid ay fariin ugu dirayeen mas-uuliyiinta wasaaraddu, xukuumadda Somaliland, qurba jooga, maamulka gobolka Togdheer, kan degmada Burco iyo ganacsatada Somaliland, kuwaas oo ugu baaqeen inay isgarab taagaan xulka gobolka Togdheer qaybihiisa kala gadisan kaas oo ay sheegeen in lagu leeyahay qarashaad fara badan, qarashkaas oo aanay wasaaraddu awood u lahayn inay bixiso. waxaanay mas-uuliyiintan ishaaca ka qaadeen in xulka gobolka Togdheer aanu ka qayb gali karin tartanka ciyaaraha gobolada dalka Somaliland haddii aan la bixinin qarashaadkaasi. arrintan ayaa ahayd muddooyinkii ugu dambeeyayba mid si weyn looga hadalhayay guud ahaanba gobolka Togdheer. sidoo kale xulka gobolka Togdheer ayaa iyaguna geestooda sheegay inay baaq u dirayaan xukuumadda Somaliland inay arrintan wax ka qabato isla mar ahaantaana la isgarab taago haddii kale ay qaadacayaan ka qaybgalka tartanka ciyaaraha gobolada dalka Somaliland. awal bay inaga ayaa bixin jiray balse waxa soo dhaxmartay in waqtiga uu yar raagay iyo dib u dhaca waqti yar oo kooban ka hadhay ciyaarihii gobolada waxa muhiim ah si guulihii gobolka Togdheer ugu yaqaanay aynu u soo hoyno waa inaynu iskarab taagnaa markaynu iskarab taagno ayaa insha Allah guul wax oo la keenaya waqtiyada ciyaaraha gobolada loo diyaar garoobayo waqtiyadii hore la ganacsatada laga qaadi jiray dhaqaalaha walba ganacsatada gobolka ayaa bixin jiray aan ku baaqaynaa in deynta dhalinyarada laga soo bixiyo marka waxaan ugu dambeeyay halkan jecelahay ugu jooga reer Togdheer taageeri jooga bahda dhalinyarada sportsiga xulka kala duwan ee ciyaaraha gobolada Togdheer gobolka Togdheer loo diyaariyay sida kubadda kooliga laliska iyo ciyaaraha fudud iyo tababaryaashooda barasab cusub gobolka Togdheer iyo maayarka cusub inay hawshaasi dardar geliyaan oo doorkooda ka qaataan oo ay ka qayb qaataan runtii horumarka dhalinyarada sportsiga si kor aan ugu qaadno moralka iyo spiritka sportka gobolka Togdheer. tababaraha ciyaaraha fudud waxa Soomaalidu ku maamulay candha waa calool muggeed ciyaartoy wixii la galiya laga maala ahna intii baaska waxa jirta caqabado fara badan oo hortaagan haddaanu nahay xulkii gobolka Togdheer maanta gobolkii ama heer degmo ama heer gobol waxaanu halkan maanta ka cadeynay haddii aan waxba laga qaban annagu ma matali doono gobolka Togdheer. cabashada ka soo yeedhaysa mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska gobolka Togdheer iyo kooxaha ciyaaraha wasaaraddaasi ayaa ku soo beegmaysa xilli muddo 2 bilood uu ka haray tartanka ciyaaraha gobolada dalka Somaliland lana filayo inuu ka qabsoomo xarunta Somaliland ee Hargeysa. Ali Daahir Maxamed Boos, Universal TV, garoonka kubadda cagta ee Alamsey magaalada Burco. xaaladaha labada Kuuriya ee Koonfur iyo Waqooyi aad u sii xumaanaysa. waxaa aad looga deerinayaa xaaladaha labada Kuuriya ee Koonfur iyo Waqooyi iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay joojisay shaqaalaha Kuuriyada Koonfureed ee markaasi ka howlgalaya dhanka xuduudaha ay wadaagaan labada dal. Pyongyang ayaa Arbacada maanta joojisay in dadka u dhashay Kuuriyada Koonfureed ay galaan goobaha warshadleyda ah waxaana sidoo kale markaasi ay sheegtay inay ogolaatay in shaqaalaha Kuuriyada Koonfureed ay ka baxaan goobaha warshadleyda ah. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in markaasi xanibaad ay ku timid shaqaalahooda waxa kale oo inta ku dareen in hadii ay dheeraato xilliga ay sii joogayaan amaba ay ku sii jirayaan shaqaalahaasi dhankooda ay gabaabsi noqon doonto amaba ay ku yaraan doonto sahayda shaqaalahaasi ay wataan.
dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in haddii shaqaalahooda ay la soo gudboonaato xaalado markaasi ammaan darro ay qaadi doonaan talaabo military oo halkaasi amaba ay ku sheegeenba inay gaari doonto halka ugu dambeysa waxaana sidoo kale iyana xasaasi maraya xaaladaha Kuuriyada Waqooyi iyo waliba dalka Mareykanka iyadoo markaasi Pyongyang ay horey u sheegtay inay nuclear ku garaaci doonto Washington balse John Kerry oo u hadlay Mareykanka ayaa sheegay in haddii ay soo faragashadaan arrimaha dalka Mareykanka naftirkooda ay qaadi doonaan talaabo kale oo dhankooda ah warkii caalamka daawadayaal la socodsiinaya anigoo Jamila Garuuna xilliga intaa ayuu iga egyahay